بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حل يحاول نكتب أرسنال صومالي فانس حكو سودا باتان برنامج كادو سويسين كاسوها تاريخ نولد كرين شاكا أو كون waxaa barnaamijka soo jeedin anigu ah Nuraadan Shakra waa marka li barnaamijka inta aan muuqaal guud galin waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka share daado si ay u gaaraan asxaab badan maasanidin Karen Shaka waxa uu dhashay 17 September 1992 waxa uu ku dhashay magaalada Basel ee dhacda Switzerland. Hooyadiisa waxaa lagu magacaabaa Elmeza Shaka halka aabihiisana lagu magacaabo Rakib Shaka. waalidiinta reer Albania waxay asal ahaan ka yimaadeen Kormelija ee dhaca cariga Serbia. Rakib Shaka waa aabaha dhalay Karen Shaka waxa uu ahaa nin reer Kosofiyan ah waxaana ka mudaharaaday xukunkii Yugoslavia shuuciga ah ee ka jiray Kosovo. waxa uu u banaan baxay in asiga iyo dadkiisaba jiritaankooda la aqoonsado. waxa uu istaagay inuu soo dhaxsado xuquuqdiisa oo ahayd xuquuq asaasi ah. waxyaabaha ugu waaweyn ay u banaan baxayeen ayaa ahaa in xaq u leeyihiin inay wax doortaan. maxay halkan dimuqraadi u ahayn? waxaan mudanahay inaan noqono dimuqraadiyiin. waxaan mudanahay in nala maqla ayuu yiri Karen Shaka abiisa. warnaxdilni ayaa u soo yeeray hooyada dhashay Shaka oo ahaa in Rakib Shaka xabsiga loo taxaabay. ma ahayn isaga kaligiisa, waxa kaloo la soo xiray adeerkiisa waxaana lagu xukumay 3 sano iyo bar xarig ah. dambiga uu galay waxaa lagu sheegay in ay qayb ka qaateen bannaanbaxyada lagu soo horjeedo dowladda dhexe ee shuuciga ee Belgrade. markaas sanadku wuxuu ahaa 1986 aabaha dhalay Shaka wuxuu ahaa 20 jir waxaana wax ka baranayay jaamacadda Palestina ee ku taala cariga Kosovo. kadib xabsiga loo taxaabay waxaa maalin kasta loo ogolaan jiray inuu 10 daqiiqo banaanka loo soo baxsho. kadib markuu dhamaado 10 daqiiqo waxaa dib lagu celin jiray xabsigiisa. Elmeza Shaka waa hooyada dhashay Shaka waxayna aanikeeda ala joogtay muddo 3 bil ah halka uu ka maqnaa 3 sano iyo bar. runtii waa qof samir iyo dulqaad badan. mar Shaka la weydiiyay arrinkaasna wuxuu yiri waxaan ixtiraam weyn u hayaa hooyaday waligii ma maqal haweeney aanin la joogtay 3 bil muddadaas yar kadibna sugaysay 3 sano. hooyaday waa qof cajiib ah ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay Karen Shaka. farxad ayaa u soo yeeray qoyska Karen Shaka oo ahaa in aabe Rakib uu xorriyadiisa dib u helay. waxaana maalinka wixii ka dambeeyay ay go'aansadeen inay iskaga haajiraan Budjevo oo ay u guuraan Switzerland sanadkii 1990. markii ay yimaadeen Switzerland waxaa bilaabatay riig kastoo ku saabsan in ilmahooda ay ka dhigaan kuwa saameyn ku leh kubadda cagta. Shaka wuxuu xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay naadiga ku soo jeedo ee Basel isagoo kula guuleystay Swiss Super League kastoo ka mid ah labadii xilli ciyaareed ee ugu horeysay. kadib waxa uu dhaqaaqay kooxda ka ciyaarta horyaalka Bundesliga ee Borussia Mönchengladbach sanadku markuu ahaa 2012. isagoo horumarinaya sumcad ahaan inuu yahay ciyaartooy hibo farsamo hogaabin isku darsaday laakiin ay barbar taalo cambaaraynta dabeecadiisa. waxaa laga dhigay kabtanka Borussia Mönchengladbach sanadkii 2015 isagoo kooxda u horseeday soo bixitaanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkii labaad oo isku xigta. wuxuu dhameystiray heshiis heer sare ah oo ugu wareegaya Arsenal bishii May 2016 iyadoo lagu qiimeeyay 30 milyan. Shaka ayaa ugu dambeyn ku biiray kooxda Arsenal
Granit Xhaka walaalkiis ka weyn waxaa la yiraahdaa Talent Xhaka, sidoo kale waa xirfadle kubadda cagta ah waxaana uu ciyaaraa kooxda Basel iyo xulka qaranka Albania. bishii Luulyo 2017 Xhaka wuxuu guursaday hamaanihiisa muddada dheer ay isa socdeen Leonita Lekaj. xaaskiisu waxay dhashay gabadh ayaana 7 Oktoobar 2019. kadib muddaas dheer kadibna waxaa bishii la soo dhaafay Granit Xhaka uu dhashay wiil. dadka qaar ayaa ka wareysan diinta uu Granit Xhaka, balse muuqaalkan caawa waxaad ku daawan doontaa diinta saxda uu haysto Granit Xhaka. Granit Xhaka ayaa ah mid Islaam ah waxaana ka soo jeedaa dalka Albania, halkaas oo ay u badan yihiin dadka jooga dad Islaam ah. Granit Xhaka ayaa dhowr jeer soo xajiyay waxa uuna haystaa diinta Islaamka. halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa wax ku saabsan Granit Xhaka. waxaa soo jeedinaya barnaamijkan waa Shakara. inta kulmi doona barnaamij noocan waxaa laga tagayaa sidaas.